iska ilaali toddobadan qalad waxay dib u dhigayaan noloshaada. kow hala wadaagi riyooyinkaaga qof kasta. xasuusnaaw in kalluunka afkiisa xiran yahay uu ka badbaado qabashada jilaabka. labo ha ku mashquulin dhibaatooyinka dadka kale si xad dhaaf ah. haddii aad sidaas samayso waxaa dhici karta in aad ilowdo dhibaatooyinkaaga gaarka ah. saddex qofna ha ugu dhowaanin si xad dhaaf ah. ha noqon mid ku tiirsan dadka kale si ka badan intii loo baahnaa. haddii kale waxaa suurtagal ah in lagaa faa'iidaysto. afar qofna ha ka amaahan lacag adiguna ha amaahin. lacagtu marar badan waxay dhaawacdaa saaxiibtinimada waxayna kugu khasbi doontaa inaad mar walba daba gasho deentaadii. shan ha isku mashquulin xasuusihii hore. fikirka badan ee la xiriira waayihii tage wuxuu dib u dhigi karaa horumarkaaga mustaqbalka. lix hasbarbar dhigin dadka kale. qof kasta wuxuu leeyahay jid gaar ah. guushaaduna waxay ku xidhan tahay sida aad naftaada u kobciso. todobo ha dayicin caafimaadkaaga maskaxeed. degenaanshaha iyo xasiloonida qalbigu waa guusha dhabta ah. sidaas darteed ha u ogolaanin wax kasta inay nabadgelyadaada gudaha khalkhalgeliyaan. ugu dambeyn toddobadan qodob ma aha keliya talooyin, waa gaashaanka noloshaada. haddii aad maanta mid ka mid ah beddesho waxaad xirtay dalool mustaqbalkaada ka bixi lahaa. haddii aadan falow dhihin boggaan waxaa dhici karta inaadan mar kalena arag. haddii aadna soo dhahdana hambalyo. maalin kasta waxaad samaynaysaa kowac maskaxeed boqolkiiba hal. garaad dhisan waa nolol dhisan.